runtii xasan sheekh hadalka ka soo yeeray oo ah dawladda Imaaraadku ha naga baxdo waxaan u arkaynaa markii agagixisadii Puntland ay ka guuleysatay Puntland wuxuu rabaa in uu damage siyaasadeed ku sameeyo xasanow culayska aad saaraysid laasaanad waa burburin Puntland maslaxad Soomaaliyeed iyo inaad difaacid Soomaaliya kama aha waxaan leenahay Somaliland ay hadda tabasho qabtaan waan ognahay oo tabashaad sheeganaysaan oo ma aha in aad dalka burburisaan Soomaaliya waa Soomaaliya mid labaad ee yuhuud wax la dhaweysto ama saaxiib dhow la noqdo ma aha waa cadawga islaamka bay ku astaysan tahay mucaaradka ee Puntland waxaan leenahay waan idin ognahay waxa aad ku halulantihiin waxaan arkayay nin Jimcaale la yiraahdo oo leh intaan madaxweyne ka helayo garow uu degan yahay oo runtii gobolkii caasimadda Puntland oo barwaaqo iyo nabad ku haysta wuxuuna u durbaantumayaa balaayo hadda waxaan leenahay ninka odayga arinta aad shalay ku hadashay arin social media ama Puntland qabatay ma ahayn meesha aan kaaga maamahay baana tahay nin guri muraayad degan cid matuuriyeeyo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin sayyidina muhammadin wa ba'du وسلام يا أمد الصوماليات خاصة كورير بنتلان إذا عدى يهول وضعنا ذا مقعوا عن مضون إيمان وحرب هالك أن ينكسر شيء ما تقضى بكل دون وكأدن الصومالية قيبه ذا كل دون سيد الدولة الفدرال كبنتلان سوماليلان هي معارض كبنتلان أفرط قضب عن ربع هذا الكيجا رنتينا قصوكوبا وجهرينتي سيد عن لوضع الصعنة حكومة الفدرال وحسن شيخ وجان شو حي مشغول كطاي بربرينتا Soomaaliya waxaan u ogeyn horay inay burburisay shaatarkii ummadda u dhaxeeyay haddana waxay u soo banaan baxday inay burburisay Puntland sidaan la socono waxaan ognahay in ay Puntland ku wado burburin laakiin waxaan leenahay Puntland mid burburaysa ma aha waa xukuumad fac weyn waa meeshii Soomaaliya laga unkay markii ay burbudhay runtii xasan sheekh hadalka ka soo yeeray oo ah dawladda Imaaraadku ha naga baxdo waxaan u arkaynaa markii agagixisadii Puntland ay ka guuleysatay oo qoladii Puntland ay guuleysatay agagixisadina wadanka laga sifeeyay Puntland wuxuu rabaa in uu damage siyaasadeed ku sameeyo runtii Puntland oo ah xukuumad fac weyn oo ka tarisa taqriiban 750 kiiloomitir deegaan ah ka talisa xukuumadda xasan marka waxaan leenahay xasanow xukuumadda Imaaraadka annagu xiriir saaxiibtinimo iyo mid amni baan leenahay mana aha mid bilowday waa mid Siciid Dani ka horeeyay oo ilaa 91 ku xusanaa weeye xiriirka iyagaasna cidna gorgortan kala galimayno taa mid weeye midda labaad xasan sheekh oo madaxweynaha Soomaaliya ah meesha aan ka iri Puntland burburinteedu ku hawlan yahay waxay tahay waxaan la wada soconnaa in maalmahan xukuumaddii qaybaheedii kala duwanaa ay ku hawlanaayeen gobolka Sool oo runtii ay leeyihiin waxaanu caleemo saaraynaa hogaamiye firdhiye gobolka Sool waa gobolada Puntland ka mid ah runtii waayo 98 goboladii Puntland la midoobay bay ahayd markii xoreynteedana Puntland qayb weyn bay ka qaadatay sidii looga saari lahaa qoladaas shishe oo reer Somaliland hogaamiyahan la sameeyayna runtii waxa dadka deegaanka ay maslaxad u arkeen bay ahayd Constitution-ka xasan oo xukumo waxa ku qoran waxa maamul goboleed noqon kara 2 gobol iyo wixii ka badan Sool waa hal gobol iyo degmo 2 gobol iyo wixii ka badan baan la yiri waxa maamul goboleed buuxa noqon kara Sool iyo Sanaag Puntland bay bartanka u fadhidaa saameyn buuxdan ay ku leedahay waxaan leenahay xasanow burburinta Puntland aad soo banaan baxday weeye culayska aad saaraysid laasaanad waa burburin Puntland maslaxad Soomaaliyeed iyo inaad difaacid Soomaaliya kama aha waxaan aaminsanahay qolada tan Somaliland oo ku dhawaaqday goonigoodka xiriirka ay la sameeyeen Talaabiib inaad adigu lambar 1 ka tahay waa aaminadeeda shakhsiga weeye waayo xasan runtii hadii daacad u yahay Sool markii hoobiyaha iyo dhibaatadu ay ku socotay buu gacanta ka qaban lahaa Muuse Bixi
asagoo markaas constitutionkii waddankana wakiil ka ahaa xukuumaddii markaa joogtana madaxweynaheeda ahaa waxa uu ka qabtay oo tilaabaha ma jirin maanta markii Somaliland ay caalamka wuxuu sheegtay haddana maanta hadalka kan ah waxaan u arkayaa inuu ujeedo ka leeyahay inta uga tago Somaliland waxaan leeyahay oo runtii yaantan dambe indhaha caalamku hayeen oo ictimaad la samaysatay xukuumadda Talaabiin ama Yuhuud waxaan leenahay Somaliland ay hadda tabasho qabtaan waan ognahay oo tabashaad sheeganaysaan oo ma aha in aad dalka burburisaan Soomaaliya waa Soomaaliya mid labaad ee Yuhuud wax la dhaweysto ama saaxiib dhow la noqdo ma aha waa cadawga islaamka bay ku astaysan tahay Yuhuudna waynu naqaanaa diinteena iyo nusuusteena ay noo sheegtay waxaan leenahay barnaamijkaas Yuhuudda ka socdo oo Netanyahu riixayo Somaliland ay ka jooga haddii aad diidaan caalamka aaraadiisa ka soo baxayso oo arintaas idinka waaninaysa midayada Soomaaliyeed waxaad ka dhaxlaysaan cawaaqib foolxun qodobka labaad oo Somaliland leeyahay waxa weeye nin sheekha oo diinta islaamka ka turjumayay baaxideen waxa uu ka hadlayna wax sax ah ay ahayd dariiqa muslimnimada saxda ah uu ka hadlayay waxaan leenahay ninkaas wax xun ma oran dadkiisa iyo diintiisa buu ilaashanayay markii uu dadka ka waaninayay fikirkan Yuhuudiga ninkaas sheekha dambina ma gelin waxaan soo jeedinaa xukuumadda Somaliland oo cir hogaamiyo ninkaas shuruud la'aan in xabsiga looga sidaayo inta uu xiraana magdhow laga siiyo haddii inta aan la yeelin oo shacab iyo maamulba ay Somaliland ay ka dhaga adaygaan arinta waxa ku imaan doonta arin aan la mahadin doonin oo cawaaqibka dhibaato badan ay ka dhaxlaan tusaale waxa ka imaan doonta hadda mandaqadan badda cas looma ogola Yuhuud looma ogola waayo wadamada islaamka oo khaliijka naga ka shisheeya kabcada ilaahayna in lagaga duulo haddii aad sahashaan in kabcada ilaahay lagaga duulo ama baytul xaraamka lagaga duulo marinbiyoodkan badda cas haddii waxaad ogaataan reer Soomaaliland diinta islaamka inaad idinku burburiseen oo dhibaato aad ku noqoteen cawaaqib xun inaad ka dhaxli doontaan barwaaqadan iyo roobkan iyo nimcadan aad haysataan oo aan ognahay Hargeysa iyo gobolada Soomaaliya u qabow inay ka mid tahay ma jiri doonto waxay noqon doontaa gobol burburo oo caalamku ku diriro oo shida badan ka dhacday noqon doontaa haddii kale anagoo Soomaalinimo ka talinayna waxaan leenahay arinta ka noqda oo cirro arintaas waxa weeye ka noqo oo caalamku meeshuu u badan yahay geel meeshuu u badan yahay baa la isugu dheelmaaye meesha caalamku oo kula rabo raac baan leenahay arinta intaasaan ka leenahay waxay naga tahay nasteexo haddii aad tabasho siyaasadeed qabtaan waaba qabtaane oo xukuumaddan hadda xukunka hayso oo Xasan Sheekh Maxamuud runtii dadku tabasho badan buu ka qadaa tabasho ka qabtaan xukuumaddan waqtigeedii waa gabaabsi oo waxaan rajaynaynaa in isbedel imaan doono sadbursi siyaasadeed baa la idin samayn doonaayo Soomaaliya kuwa hogaamiyaad noqon doontaan waxaan idin soo jeedinaynaa in aad dalka Soomaaliya idin cawaaqib xumo u horseedin inta haddaan uga tago qoladaas mucaaradka iyo Puntland waxaan leenahay waan idin ognahay waxa aad ku halulantihiin runtiina taariikhda idin qori doonta Puntland oo dagaal soo gashay argagixiso maantay aan culays iyo xasarad siyaasadeed aan tabar u hayn haddii aad maanta ku abaabusheen xasarada siyaasadeed haddii waxa weeye dhin kasta wixii uu la yimaado buu cawaaqibkeeda helaya waxaan leenahay taariikhda idin qoraysa in xukuumadda Puntland ay ku hawlan tahay la dagaalanka argagixisada Daesh oo dagaal loogu jiro sidii dalka loo xoreyn lahaa oo ururkaas laga guuleystay loo ciribtiri lahaa hadda idinku aad u dhigateen in aad Puntland burburisaan haddii waxa weeye idinka baa taariikh xumo iyo taariikh mugdi idin geli Soomaalidu waxay ku maamaadaa guri muraayada nin degan cid ma tuuriyo waxaan arkayay nin Jimcaale la yiraahdo oo leh intaan madaxweyne ka helayo garow uu degan yahay oo runtii gobolkii caasimadii Puntland oo barwaaqo iyo nabad ku haysta wuxuuna u durbaantumayaa balaayo hadda waxaan leenahay ninka odayga arinta aad shalay ku hadashay arin social media ama Puntland qabatay ma ahayn meesha aan kaaga maamahay baana tahay nin guri muraayad degan cid ma tuuriyo haddii xukuumaddu Puntland wax hadda dhib oo ka jida ma ogin haddii hadda tabasho siyaasadeed qabtidna Siciid Dani wuxuu u idman yahay 5 sano
taqriiban 2 sano waa gudubtay sanadka saddexaad baa dhexda lagaga jiraa Puntland xeer waxay u lahaan jiray in la isu sugo maalintii xukuumaddaas xilku ka dhamaaday qofkii aan la inuu yimaado laakiin qoladii naasadda laasacaanood iska xaadirisay waxaan ugu isleeyahay fashil siyaasadeed xoog badan baa idinku dhacay Puntland dambana ma malaynayo inaad dib u hogaamin doontaan waayo shacabka reer Puntland cidda wax ugu taalay cidda kale way kala garanayaan inta haddaan inta uga tago shacabka reer Puntland meel uu joogo midnimaan ugu baaqaya ama reer Puntland guud ahaan waxaan leenahay midnimo ayna deeqda mid wajir iyo midnimo ayna deeqda iyada waxaan leenahay inuu u dadaalo u sacayno inaasan ku soo ururinayaa aad iyo aad baa mahadsantihiin adeega Kaftoon ee bangiga Salaam waa adeeg ku sahlaya in lacagtu kugu jirta akoonkaaga bangiga aad kala bixi karto ama aad dhigan karto adigoo adeegsanaya moobilkaaga Golis xilli kasta habeen iyo maalinba si khidmad la'aan ah adigoo aan booqan xarumaha bangiga